Soomaaliya xilli ayay ahayd mid ka mid ah wadamada gobolka Bariga Afrika iyo Afrikaba ugu awoodda badan xagga military. Waxa ay qayb ka qaadatay inay xornimo helaan wadamada Afrika qaarkood. Qaar dagaalamayay ayay ugu hanjabtay inay kumanaan askari kula wareegi doonto caasimadahooda sabab la xiriirta dejinta fulinta heshiisyada nabdeed. Dagaalkii ugu cuslaa ee geeska ka dhacana waxa ay bisad u bedeshay libaaxii Afrika ciidankii loogu magac daray ee Itoobiyaanka. ciidana isma lahayn ciidanka Itoobiya ciidan isur taagi karo ayaa Afrika ay leedahay cidna kuma fikiraynin marka laakiin ciidankii libaaxii geeska Afrika la baxay bisad baan ka soo saaray kama sheekaynayna maanta taariikhdii xoogaga amni ee Soomaaliyadii hore waxaan eegaynaa dib u kabashada qayb ka mid ah ciidanka amniga ee hadda markaan u baahannahay inaan dib u raacno dib u dhiska sii xoogaysanaya ee ciidamada militariga Soomaaliya maanta waa inaan maanka ku haynaa tababaradii ciidamadii ugu horreeyay ee ay dawladdu ku meel gaarka ahayd dhistay 2005tii khubarada amni dhaliilo badan ayay huwinayaan ibafurkii loo maray jeexidda wadadaas xilli qodxo iyo mudacyo badan ay yaaleen laakiin tan ugu daran waa cidda tababartay oo aan ahayn dawlad markasta doonaysa inaad awood yeelato xukuumadda Itoobiya oo danaheeda ka dhex arkaysa ayaa dawladda ku meel gaarka ahayd ee ay taageeraysay u tababartay xoogag amni oo lagu qiyaasay tiradooda ku dhowaad 6,000 oo askari in ka badan laguna qaybiyay saami qaybsiga beelaysiga 85% waxay noqdeen kuwa aan hanan shaqadii loo tababaray dibna u burburay waana hilaadii 2006 ilaa 2008 la soo gaaray xilligaas oo isbedelay hogaankii dawladda ku meel gaarka ahayd aan soo degdegne caawinta Turkiga uu sameeyay Soomaaliya kaliya qayb kama ahayn taakulaynta dadka dhibaataysan sanadkii 2011 balse waxa uu istaagay sidii uu dawladda federaalka Soomaaliya uga caawin lahaa inay dhisato ciidan aad u xoog badan kuwaas oo ku guulaysta sugidda ama xaqiijinta amniga daleed waana tabinteennu halka ay ku jihaysan tahay hannaanka dhismaha xoogaga amni ee Soomaaliya inaan wali la isku raacsanayn sifaha qoridda iyo in siyaasad ahaan ciidanka laga madax banaaneeyo marka aan ka tagno aafada kale ee haysata waa dawlad goboleedyada oo aan ogolayn in ciidankaasi arkaan sababtuna waa cabsida xukunka ama joogsiga kuraastooda maadaama Soomaalidu ku kala irdhowday awood baahsan oo ciidanku ay hogaaminayeen 1991dii saddexda ciidan ee aan ka hadlayno waa Haramcad Danab iyo Gorgor waa saddexda ugu awoodda badan waqtigan waana military dhammaystiran marka laga hadlayo qiimaynta ay sameeyeen dadka la socda arrimaha militariga kuwaas oo isugu jira jeneraal ciidan oo shisheeye iyo Soomaaliba leh Danab waxa asaasay tababarayna Mareykanka wali waxa ay ku tiirsan yihiin dhaqaalaha saadka iyo sahaydana ay ka helaan wasaaradda difaaca ee Mareykanka inta badan amarada waxa ay ka sugaan taliska Africom ee Mareykanka shaqada ugu badan waa la dagaalanka argagixisada oo ay wajahaan daliilo badan ayaa loo jeediyaa hase yeeshee xog badan lagama hayo gudahooda waxa ay ku sugan yihiin tira ahaan waxa lagu qiyaasayaa xoogaga amni ee Danab marka lagu daro kuwa BSF ee Puntland oo Mareykanku uu yana sidan oo kale u tababara gacantan ugu hayo inay gaarayaan in ka badan 4 ilaa 3,000 oo askari Turkigu waxa uu Muqdisho gaar ahaan dhanka badweynta Hindiya ku leeyahay saldhigga military ee ugu weyn oo ay ka dhisaan meel ka baxsan dalkooda waxaana saldhiggaasi loo yaqaanaa Turkisom ama Turki Soomaaliya saldhiggan marka laga soo tago inuu yahay xarun ciidan oo ay Ankara leedahay waxa uu door weyn ka qaataa tababarsiinta iyo laylinta labada ciidan ee Gorgor iyo Haramcad oo ay Ankara tababarto Gorgor iyo Haramcad waxa ay maraan laba tababar oo adag kan koobaad ee kala shaandhaynta ama miiridda hadba sidaad u taqaan waxa uu ka bilaabanayaa geedigiisu dugsiga ama saldhigga military ee Muqdisho waxa uu soconayaa 3 bilood oo xiriir ah waxa ay qaataan casharro kala duwan oo noocyo leh terör bölgesine sızma tirada ka bara mooste ama ka gudubta tababarka Muqdisho waxay u socdaan xarunta kumaandooska Turkiga ee gobolka Buuraleyda Isbaarta ee Turkiga halka
waxa ay ku qaataan casharro kale oo adag cimilada ayaa isku beddesha buuralayda iyo qabowga darina waa u wehel waana aag loogu talagalay tababarro militari uun 9 cisho oo kale ayay ku qaataan halkan labada ciidan ee gorgor iyo haramcad waxa ay kala wataan 2 tababar oo kala gooni ah mid kasta waxa uu qaataa tababar nooc ah haramcad way ka halis badan yihiin ciidanka gorgor maadaama ay yihiin askar u tababaran liishka ama shiishka sidoo kale loogu talagalay ka hortegidda rabshadaha weerarada magaalooyinka ka dhaca gaar ahaan kuwa lagu bartilmaameedsada madaxda dawladda weligii yaan leeyahay ka dareemin adigoo dacas iyo qofka qaba aday karti sidii lagu yaqaan rukubaad si waxmalay ma halka ciidanka gorgorna u tababaran yihiin ka qayb qaadashada dagaalada militari howlgallada gaarka ee beegsiga shakhsiyaadka la doondoonayo waana ciidan loogu talagalay aadidda meel halis ah oo aan gurmadkoodu si fudud ku soo gaari karin marka laga soo tago ciidankan inay haystaan tababarro la xiriira ku dagaalgelidda hubka noocyadiisa kala duwan waxay haystaan tababar kale oo isna la xiriira dhanka militari sida orodka ka tallaabidda jidgooyooyinka iyo guud ahaan noocyada tababar ee jirdhiska shaki ma leh inay Ankara dhistay awood xooggan oo ay Soomaaliya leedahay maanta gaar ahaanna labada ciidan ee ugu xooggan oo ka tirsan xoogga amni ee Soomaalidu hadda ay ku naaloonayso cadaymaha loo hayo labada ciidan tiradoodu waa mid iska yar waxaase khubarada amni ay bixinayaan qiyaaso kala duwan marka laga soo dheegto goobaha ay kaga sugan yihiin gudaha dalka haramcad oo loogu talagalay ka howlgelidda magaalooyinka iyo ka hortagidda weerarada madaxda ficilada argagixiso iyo dagaalkadiisii waxaa lagu qiyaasaa 800 ilaa 1000 askari dhammaantood waa dhalinyaro ay soo barbaartay intii ay burburtay dawladdii dhexe ee militariga ahayd ka soo baxay dugsiyo sare lagu xulay shuruudo adag qaarkoodna waa ciidan horay uga tirsanaa niisa hay-adda sirdoonka qaranka oo dib loo tababaray haramcad inta badan waxa ay sitaan hubka fudud mana ku dagaalamaan hubka noocyadiisa kala duwan ee waaweyn taasoo kuu muujinaysa sida ay ugu carbisan yihiin shiishka iyo howlgallada qorshaysan waxa ay kaloo inta badan xirtaan tuuto ka duwan midka ay qaataan xoogagga amni ee dowladda federaalka ee Soomaaliya si fudud ayaad uga dhex aqoonsan kartaa kolonyooyinka militari ama ciidan ee dhex maraya gudaha magaalooyinka gorgor oo iyaguna tababarro gaar qaba waxa tir ahaan lagu qiyaasayaa 3 ilaa 4 kun oo askari waa ciidan si gaar ah u qalabaysan misna dagaal kasta ka qayb gali kara madaxweynaha Puntland Siciid Dani oo dhawaan hadal ka jeediyay Garowe waxa uu sheegay in gorgor iyo haramcad ay yihiin ciidan aad u tiro badan sidoo kale ay wataan taangiyo dagaal tiradooda waxa uu sheegay inuu ka cabsanayo inuu ka nixiyo dadka balse uu sheegi lahaa wuxuu kaloo sheegay in ciidamadan aysan wax naxariis iyo jixin-jixtoona lahayn waxa uu idaafeeyay inay ka maran yihiin adeegsiga qabyaaladeed ilaa iyo haatan kuliyadda Turkisom waxaa ka qalan jabiyay 5 guuto oo ciidan sida uu sheegay safiirka Soomaaliya u fadhiya Turkiga waxaana uu tilmaamay in guutada shanaad ay ku biiri doonaan 2500 oo askari kuwaasoo horay Turkigu u tababareen iskaashiga iyo dib u dhiska militariga Soomaaliya ee Turkiga iyo Soomaaliya waxa uu qorshuhu yahay in ciidamada lagu tababaro xarunta isbaarta ee Commandoska tiradooda la gaarsiiyo 15 ilaa 16 kun oo askari si ay markaas tirahaas u noqdaan 3 meelood oo meel ciidanka dawladda federaalka awoodna ugu yeeshaan inay amniga kala wareegaan AMISOM sida uu xaqiijiyay safiirka Turkiga ee Soomaaliya shaki ma leh dib u soo kabashada xoogagga amni ee Soomaaliya hase yeeshee caqabadaha ugu weyn ee ay la kulmayaan waa dhinacyada siyaasiyiinta ee Soomaalida oo hadba nooc iyo magac gaar ah u bixinaya